Okay. إن أخيرت قيمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحارب maanta in ay idin baro fiilaanadu waxay yihiin iyo sida loo configure gareeyo iyo inta nooc ee loo configure gareeyo ama inta way ama dariiqo ee loo configure gareeyo. Okay, fiilaano maxaa tahay? Fiilan waxa weeyin imika tusaale ahaan in hal switch ayaan haysanaa tusaale ahaan switch kan haysanaya hal switch kan haysanaa imika. Okay, marka switch kan waxaan rabnaa in ومقرأ في مقرأ كمبيوتر هذا كحلا إن كمبيوتر كحلا ما رأيت أنا برا كمبيوتر سويتش كحلا وحاربنا إن كنا كدقنا تصالحان إن سويتش سبريت كمبيوتر كان كمبيوتر كله سبريت أو نقطة. أوكي المركة أو كمبيوتر أو النقطة. أوكي إن كان سيمر عند أوكي سكولي كمبيوتر كان مركة labada computer sidan ay kala yihiin kana fiilantan buu ka tir fiilantan ka tirsan yahay kana wuxuu ka tirsan yahay fiilantan iyo ka tirsan yahay marka waxaan rabaa labadan switch aan imika arkayno in magaranaysa arrow soo saaray in switch kan ay ku wada xidhmaan saamka ugu wada xidhan yihiin laakiin labadoodu ayna spin gareynin marka labadoodu hadii inay iska doona because kuwana ay yihiin accounting oo kale fiilankan kale fiilantan ay tahay muxuu ahaa in finance ama human resource ama waxa doonto labada marka waxaan rabnaa waxaan doonaa inay isgaarin oo nin walba data gaar ah uu leeyahay ama ma garanaysaa ayna is ogaanin labadooda xogood waxaan doonaynaa marka in kan villaniskan ay gaar u ahaado sirtiisu ama iyo datadiisu kana sirtiisa iyo datadiisu gaar u ahaato marka sidaas marka aan doono waxaan isticmaalaynaa inuu ku soo dhacaya inaan villano aan isticmaalo marka VLANs waa asna waa virtual LAN video waa virtual LAN tuna waa LAN switching and muxuu ahaa network. Okay marka waa sidaas marka waxa weeyaan hadda hadii aad markuu network kordho hal switch ay ka gudubto laba switch isku gudubtana VLANadii ku bataan yani mesela shaqada businesski weynaatana fiilaanadii adoonaysid kuwan oo kala aha baad ay switchan kala ku configure gareeysa fiilantan baa kala kan dhigay PC2 ah marka hore PC3 ba fiilantan aha in ma garanaysaa imika oo waa ka PC3 ba fiilantan aha imika PC2 baan ka dhigay fiilantan computeradii bay noo batay halkan ma garanaysaa in fiilanto kala haaway in fiilantogan baa ka dhigay ma garanaysaa in fiilantan PC2gan PC4 waxaan ka dhigay fiilan 20 oo marka halkan fiilantan iyo fiilan 20 aan haysanay marka halkan ma garanaysaa isku gaadha waa isay labada fiilan isku gaadhaan labada switch sida ay fiilanada datadooda u kala gudbiyaan waa barantoona laakiin hadda fiilanku conceptkiisu waa sida routerka iska ilow saddex fiilanada saddex qaybood waa marka ugu horeysa reachability-ga hore oo waxa la yiraahdaa VLAN switching ama basic VLAN switching basic ana ku qoran laakiin waa VLAN switching switchadu datada isku wadaarsadaan kuwaas maanta baranayna waxa kale oo jirto inter VLAN switching oo routine oo imika marka VLAN switching marka ay tahay BC maxaa la yiraahdaa VLAN-tan waxay gaari kartaa on switch to VLAN-tan keega maanta baran doona VLAN 20 wuxuu gaari karaa oo kaliya VLAN 20 iyo VLAN-tan isba gaari karaan inkastoo ay hal switch ku xiran yihiin VLAN 20 VLAN-tan ma gaari karo hada switch 1 hadii ku xiran yahay macno waxa weeyaan inkastoo ma garanaysaa ay labada switches gaarayaan laakiin labada VLAN isma gaari karaan 10 iyo 20 laakiin marka waxa la inter VLAN routing sida uu magacuba sheegayo VLAN-kii inter VLAN-kii ayaa ma garanaysaa VLAN isdhexgalkii VLAN-nada isku xirkii VLAN-nada weeye inter VLAN routing waa magarasha data isweydaarinaya oo yahay mesela u kala gudbinaya VLAN-nada interna waa isdhexgalkii inter VLAN waa VLAN-nada isdhexgalkooda iyo mid saddexaad waxaa jirta switch-yadan hal switch ama laba switch aadoo ama waxaan ka wadaa hal switch ama laba switch aadoo hal switch haysta basically halka switch VLAN-nadii oo dhan aad router 1 iyo ku configureyso switch 2 switch 1 oo markaas magarasa sida datadii routerkii au router on stick waxa la yiraahdo matala hal linkii kale tuu leeyahay marka qaybtana meesha ka baxaysa switch kana meesha ka baxaya marka iyo linkiga marka hal switch baan ku xiraynaa datadiina VLAN-nadii VLAN 20 iyo VLAN 10 isaga ayaa u kala gudbin doona saddex nooc ayaa loo qaybiyaa imika aan bilowno
waxaan bilaabaynaa imika PC1 hadda imika switchka oo kale switchooyinka haddaan tagno oon joogno waa naga halkan joogna waxaan odhanaynaa horta iska kibir garayno kaon marka fiilan imika waa kale switchkan joognaa inkasta oo kan switch 1 yahay aan configure gareeya sida loo configure gareyno waa sidan magac baanu sameynaa host name is switch 1 halkan kalena switch 2 na waxaan sameynay sida oo kale waxaa leena configure host name is switch 2 okay marka haddaan switch 2 tagno aan idhaahno end ama exit laba exit sameynaa ama end ina add xagga ugu dambaysa ina geenaysaa haddaan idhaahno show VLAN wax VLAN waxaan haysanay VLAN 10 iyo VLAN 20 yay noo configure karaysa waa iska dhimid karayna ayaga laftiga ugu si aan idin tuso no VLAN 10 and no VLAN 20 marka inaga saan idhaahno dib uga baxno show VLAN haddaan idhaahno wax VLAN ma haysano adiga arkay VLANada waa default marka VLAN 1 waa VLAN 1 baa switchka iminka VLAN 1 labadan switch imika haddaan IP address siino waan tijaabinayna inay isgaadhaan way isgaadhayaan because VLAN 10 iyo VLAN 20 midna kumayna configure karin wax VLAN ma haysano iminka labadan computer afartan computer danka IP address kala siino inay isgaadhaan waa suuragal horta kuwan way isgaadhayaan kuwana way isgaadhayaan afarta way isgaadhayaan because haddii aan marka halkan maartay aanu sameyno trunk bal waa fiirinaynaa iminka halkan PC1ka aan tagno imika waxaan odhanaynaa IP marka PC-yadani VPS baa la idhahdaa GRS3 ku yimaadaan marka waad isticmaali kartaa sidii aad magaranaysaa testigaad ku samayn kartaa sidii router computerada aad isticmaali kartaa marka waxaan noqonaynaa IP 10 waa PC1 waxaan ku jirno waa kan VLAN 20 ka tirsan yahay waxaan siinaynaa 10.2 oo kan IP addresskiisu hoosta ah .10 baa siimiyey haddana waxaan sameynaa maadaama PC1 yaa .2 slash kana 24 way naga ogolayaan checking for duplicate IP address buu yidhi marka waxba u waayey marka haddana show IP waa ka IP addresskaas ayaan siiyey marka wuu haystaa copy baan odhanayaa PC2 baan siinayaa PC2 marka waxaan ku bedelayaa maadaama PC2 waa kan moogtahay PC2 oo switch 2 buu ku xidhan yahay maadaama VLAN 10 yahay oo isku midkii magaranaysa PC1 aan ka imanay marka hore PC1 VLAN 10 buu ahaa VLAN 20 buu ahaa hadda PC2 oo configure gareyna qaybtan kale ah oo VLAN 10 ah marka waxaan halkaas 2 ka yahay 1 baan odhanayna waa kan VLAN PC2 10.1.10 marka waxaan siinaya halkan 2 maadaama PC2 yahay isna marka IP-gaasaan ka tegay markaa miya info kaa yeelay okay copygaygaasaan kasii haysanaya PC3 baan tegay imika PC3 waa kan waa VLAN 10 marka VLAN 10 halkan waxay ka noqonaysaa halkan kalena switchkana maadaama PC3 yahay switchkaasaan siinay haddana waxaan iloobay IP-gii marka waxaa odhanaya IP saasuu marka ku qaadanaysan IP PC3 oo ka tirsan VLAN 3 show IP haddaan idhaahdo waa kaa wuxuuna siiyey 10.1.10.3 oo PC3 ah okay PC4 oo lastki oo kan ugu dambeeyey oo VLAN 20 ayaan configure gareynaa iminka copygaygii baan wataa marka copy baan odhanayaa maxaa odhanaya IP 10.2.10.4 maadaama PC4 yahay /24 saas bal iminka marka waxaan sameynaynaa switchada iminka midna ma haysto magaranaysaa tarankii linkigan u dhexeeya switchada waa app waan arkaynaa laakiin kuwani waxba configuration dhan ma laha intan marka inay labadan switch ay data gudbin karaan maadaama VLAN 10 ka wada tirsan yihiin talimkaas inay show VLAN haddaan kan idhaahno switch 1 show VLAN waa maaragta VLAN 1 ayay VLAN 1 ka maaragta oo defaultiga ah ayay ka wada tirsan yihiin interface-yadii oo wada dhan ma aragtaa interface-yadii oo dhan waa wada active taasi ka wada tirsan yihiin in VLAN maxaa la switch 2 haddaan tagnana waa sida oo kale taasi ka wada tirsan yihiin isaguna show VLAN
switch tona waa kaas ama fiilaanada ka dhimid garanayna sig switch tona no fiilaan 10 and no fiilaan 20 haddaan saan idhaahno wax fiilaani kuma jiro fiilaan 10 buu fiilaan 10 bay kooda tirsan yihiin fiilaan 1 bay kooda tirsan yihiin iyaguna okay marka waxaan isku eegaynaa switchadii in ay datada gudbin karaan oo BC3 oo bingarayn karo BC2 oo isku IP oo isku yihiin isku subnet ay isku yihiin VLAN. Okay, so let me go to BC3. Okay, BC3 waa kan BC2 ku xiga xanaa show IP saan u aragno waa ka marka xanaa ping in isagu isbingareeyo 10 marka hore 10.1.10.3 isagu waa ka isbingareynaya maaragta marka waxaan isku dayanaa inuu BC2 ga oo isku fiilaantan yihiin oo isagu halkan ah ma garanaysaa BC2 halka ka BC adressiis waa 2 halkana waa BC4 halkana waa BC1 oo 1kiisaan siinayna isagana BC1 halkana BC waxaan siinayna BC3 so if 3 oo BC2 fiilaantani inuu bingarayn karo magarasa fiilaantan hadday isbingareeyaan maadaama oonan configuration dhan intanan ku haysan waa idin macnaynaya sababta isku bingarayn hadday isku bingarayn kari waayaanna sababta isku bingarayn kari waayaan waa nin macnaynaya okay so marka waxaan leenahay 10.1.10.2 oo BC2 waa isku fiilaa waa ka uu bingaraynaya maaragta okay maxay isku bingaraynayaan marka haddaan idhaahno maadaama isku same subnet yihiin horta ma garanaysaa horta VLAN trunks dhan ma jiro maadaama na jiro show interface trunk dhan ma jiro maadaama uu oota yahay show interface gigabyte waa gigabyte waa tan oo switchka imika waxaan eegaya linkigan labada switch u dhexeeya ayaa fiirinaya interfaceka switchkan labada interfacekan linkigan ayaa u dhexeeya labada switch kana datada u kala gudbinaya marka kana fiirinaa marka waxaan odhanayaa show interface gigabyte 0/0 switchboard marka switchboard haddaad tidhaahdid wuxuu ku tusayaa in uu halkan aan wax taraanka la idhaahdo oo datada u kala gudbin karaa uusan jirin labadooda wax taraanka la idhaahdo oo datada uu kala gudbin karo kuna naga qaado wax taraanka la idhaahdo oo datada u kala gudbin karaa u kala gudbinaya muna jirin inka halka markaa aragtaan in ma garanaysaa ma aragtaan muxuu ahaa ma aragtaa halkan ma aragtay inuu yahay irjaadi inuu ka yahay dynamic auto switch 2na waan tegaynaa switch 2 switch 2na waan tegaynaa halkana soo dhigaya isagana switch 2 maybe switch 1 switch 2 okay marka haddii aan tegno switch 1 waa dynamic auto that switch 2 tegna haddaan show interface x0/0 switchboard marka waa ka dynamic auto kaasina ma aragtaa inuu dynamic auto yahay marka switch 1 waa dynamic auto ma aragtaa marka switch ma form yani isma arki kara yani inuu datada u kala gudbiyo waa bug baan u malaynaya because inay is arki karaanba in uu BC-gan gaadho waa qalad bay aniga ila tahay laakiin waa de GNS3 ga bug inay taas suuragala inay wax ka bedeleenoo
magaranaysa ay sax tahayna I don't know agarat ka taas wata inay sarkaan laakiin ma ahayn okay marka BC1 now and okay waxa ku aan iska dhigi karayna صح marka iminka BC3 saas ayuu gaarayaa saaxiibkii BC2 okay haddii uu VLAN 20 oo BC1 yahay inuu BC1 marka isaguna bingarayn karo 10.2.10 inuu BC4 gaari kara ayaan eegaynaa isna uu gaari karaya isna uu gaari karaya hadduu ma garanaysaa BC1 bingarayana waa kaas uu isgaaraya okay imka hadda waxaan isku dayi doonaa markaas aniga baagun bay la tahay laakiin isgaaraan kombiyuutaradu may ahayn maadaama VLAN 1 native yihiin haddii ayna nativeku magaranaysaa show VLAN ID agartay VLAN 1 show VLAN ID 1 markaa adhay wuxuu iisoo saaray magaranaysaa VLAN 1 inay tahay active waxa kuwan oo dhanna inay portable yihiin show spanning tree haddaan inka idhaahdo spanning tree-ga forward garaynaya waa kan gigabyte waa waa gigabyte waana designated waana forwarding markaas maadaama spanning tree-gu forward garaynaya for that reason ayna one VLAN ka tirsan yihiin for that reason bay isku gaadheen bay ila tahay waa sax saas way noqonaysa maadaama spanning tree-gi forward garaynayo hal linkii ay tahay maadaama hal linka taa laba linka hadday tahay mid ba loo garayn lahaa oo mid forward garaynaya ayna native VLAN ka wada tirsan yihiin saasay isku wada gaarayaan bay ila tahay laakiin imika waxaan isku dayi doonaa inaan switch 1 ka bilowno oon configure garayno VLAN-nadii marka halkan VLAN interface waa interface-kan oo ku xidhan BC3 waa gig 3 moogta gig 0/3 waxaa dhahay switchboard mode access switchboard access VLAN 10 is a 3 marka wuxuu leeyahay there is no VLAN access VLAN does not exist create VLAN 10 now so imka waa create gareeyey haddii aan VLAN-kan kale maxaa dhahay tanna waa gig 0/2 ku xidhan BC1 iyadana ma garanaysaa waxaa odhanayaa ma garanaysaa mode access same VLAN 20 kana VLAN 20 marka VLAN 20 isna is creating now marka hore may jirin okay BC2 yaan tegaynaa waxaa odhanayaa waxaan ka wadaa switch 2 VLAN-nadiisa marka waxaa odhanaynaa moogtahay waa gig 0/1 oo BC2 ah interface gig 0/1 BC2 ah switchboard mode access VLAN switch 2 or VLAN 10 hubsada switch 2 or VLAN 10 yes waa kay uu create garaynayaa marka hore way jirin haddana gig 0/3 oo BC4 ah until when waxaa la arrowgaas isticmaalaya VLAN 10 regard VLAN 20 okay now haddii aan VLAN-nada tegno BC1 imika haddaan tegno oo VLAN 20 ah oo marka hore saaxiibkii bingaraynayood aragteen ma garatay imika BC1 isagu waa isbingarayn karaa laakiin saaxiibkii marka hore uu bingaraynayo ma aragteen markii hore waa tan uu bingareynaya 10.4 oo ahaa VLAN 20 oo BC4 ahaa marka hore uu bingareynayo laakiin imika ma bingareynayo sababtuna waa maxay waxa waaye tarankii u baahan yahay marka waa inay labada switch marka hore data isku diraan because native VLAN-kii data iskugu dirayeen baa meesha ka baxday VLAN 10 iyo VLAN 20 ayay kala noqdeen marka imika switchadii waa kuwan haddaan idhaahno show interface taranki ma jiro laakiin haddaan show VLAN waa kuwa VLAN 10 iyo waxaa jira VLAN 10 iyo VLAN 20
marka VLAN 10 iyo VLAN 20 eg VLAN 10 waxaa la mid ah oo active ay ku tahay G03 waa switch 1 G03 na waa PC3 oo ku xidhan ma garanaysaa muxuu ahaa active ku ah G03 oo VLAN 10 ah VLAN 20 na waa G01 G01 na waa PC1 waa taas haddana kadhashay show MAC address table MAC address table waa kan wuxuu bartay marka hore on ma garanaysaa isbingareeyey maxaa dhahdaa VLAN 20 haddana ninka idhaahdo VLAN maxaa dhahdaa BC1 oo 01 ku xidhan ayaa isbingareeyey imika haddaan idhaahdo BC3 maadaama ku xidhan yahay isbingareeyo ama isbingareeyo 3 switch 1 ma hadduu isbingareeyo nama tusaayo waa hadduu laakiin bingareeyo BC3 maaragtay saaxiibkiis oo BC2 ah hadduu bingareeyo because switchkii baa aadaya halkan MAC addresskii oo BC3 imika meesha kuma jiro eeg imika MAC addresskii VLAN 10 meesha kuma jiro VLAN 10 na oo switch 1 baan joognaa imika wuxuu ka tirsan yahay maxaa la dhahdaa switch 1 buu iyo BC3 ku xidhan yahay oo VLAN 10 buu ka tirsan yahay marka VLAN 10 buu iyo ka tirsan yahay halkan VLAN 10 kuma hayno MAC addresskiisii G03 na kuma hayno halkan oo switch oo ku xidhan yahay BC3 laakiin imika haddaan isku dayo inaan bingareeyo saaxiibkii BC2 waa in uu switchkani datadiisa soo diraa MAC addresskiisa switchkani bartaa interfacekaas au listi garaystaa switch 1 kadibna datada markay halkaa joogto way daroob garoobeysaa because wax halka transport ku sameynaya halkan geenaya ma jiro aan fiirino markaa imika switch maxaa dhahay BC3 waa kan wuxuu bingareynaya haddaan isku dayanaa 10.1.10.2 oo ah BC2 oo saaxiibkiisa marka ma bingareyn karayo waa kaa wuxuu odhanayaa waa kaas wuxuu odhanaya host not reachable okay haddaan imika switch 1 ku noqono waa inaan helnaa G03 MAC address laga bartay show MAC address table waa taa MAC addresskii waa kaas G03 laga bartay iyo 20 because 20 na mar hore ayuu ma garanaysaa BC1 bingareeyey waa kada BC1 marka hore wuxuu bingareeyey 10.4 oo VLAN 4 ah okay imika switch 2 haddaan u gudubno show VLANadii waa kuwaas haddaan idhaha show interface trankii ma jiro haddana show interface gig 0/0 oo tan labada switch udhexaysa ah tana ah ma garata switchboard haddaan markaa idhaahdo switchboard still waa dynamic auto still waa administrative modku waa maxay waa dynamic auto so for that reason reachability ma jiri doonto marka haddaan show MAC addressna uma maleynayo inuu MAC address unka hayo kaliya wuxuu hayaa VLAN 1 oo ah switchka MAC addresskii oo labada switches ku xidhan yihiin oo G00 ah oo waa ka G00 ka unbu switch 1 MAC addresskiisu haystaa switch 1 inuu MAC addresskan leeyahay maxaa ku cadaynaysa halkan aan tegey waxaa dhahay show interface gigabyte 0/0 oo keliyaan odhanaya halkan marka waxay iga tusi doonaa maadaama uu ma garanaysaa switchkani kan ahaa muxuu ahaa VLAN 1 maxaa dhahay switch 1 MAC addresskiisu inuu sidan yahay OC14 7404 okay so halkan aan ka fiiriyo wuxuu yahay OC14 7404 7404 iyo 40 saasuu switch 2 ku bartay switch 1 haddaan idhaahno sidoo kale isna show MAC address table in waa kan ka switchka u haystaa oo ah
OC47 waa switch 2 MAC addresskiisa. So haddaan switch 2 imika tegno waan idhaha show maxaa la idhahdaa interface x0/0 okay just intaa un haddaan idhahno waxaa ogaanaynaa MAC addresska switch 1 haysto inuu ka switch 2 yahay OC47 daawo. Switch 1 waa kan bartay, switch 1 waa kan OC47 switch 2 tegaynaa MAC addresskiisa waa kan waa OC47 9808. switch 1 wuxuu bartay 9808 iyo 40 iyo 40. saas markaas switchada isku kala barteen. Okay wax kale oo aan switch 1 imika ka haysano show MAC address tinga haddaan idhaahno ma yaqaano ma garanaysaa labadan fiilaan ma yaqaano. fiilaantan maxaa la BC3 BC2 na ma haysto, BC4 na ma haysto, BC2 na ma haysto, MAC addresska BC4 na ma haysto. laakiin waxaan isku dayanaa inaan bingarayno fiilaantan oo switch 2 bingareeyo fiilaantankan oo switch 2 bingareeyo sidaa darteedna ay isku arkaan ama aan MAC addresska u helno. Okay BC4 baan tegaynaa waxaan odhanaynaa multibinkeed saaxiibkiis fiilaan 20 ahaa oo 1 ah. Okay IP baa sorry ka qalada ka yimid aqalbinkii odhanayaa 10.2.10.1 oo ah magarasa BC1 BC4 baa bingareynaya BC1 imika mana bingarayn karo laakiin haddana switch 2 tegno imika marka hore MAC addresska wuxuu haystaa kan oo switch 1 ugu xidhan yahay G00 ga ah MAC addresskaasu kalaatu haystay. laakiin imika haddana show MAC address table BC20 fiilan 20 waa haystaa oo BC4 ah oo MAC addresska BC4 waa ka MAC addresska BC4 haddaan idhaahno imika show IP MAC addresskiisii waa in uu na tusaa waa ka waa 005079. okay switch 2 005079 BC4 66 waa kan haysta 6803 switch 2 6803 saasuu ku bartay. okay haddaan markaan aan idhaahno BC2 haddaan tegno markaa waan idhaahno bingaree muxuu ahaa allahumma salli calaa Maxamed waxaad bingareysaa saaxiibka 10 maxaa BC2 bingareeyo BC3 10.1.10.3 ma bingarayn karayo. laakiin fiilaan 1 switch 2 wuxuu baranayaa imika fiilaan 10 uu baranayaa MAC addresska oo BC2 oo G0/1 uu baranayaa waa ka fiilaan 10 waa bartay G01 waa bartay G03 waxay ahayd ama gigabyte 03 waxay ahayd BC4. saas marka fiilaanada isku bartaan imika maxay noo haray in ay labadii BC afartii BC muhiimadda ay leedahay in switchada halkan aan taraanka ku sameeyno. waxaan ka dhigi doonaa waxa la yidhaahdo taraanka ayaan ka dhigaynaa taraanka okay taraanka ayaan ka dhigaynaa linkigan halkaan وعرفان كوريتنا الكلام وحنكون قريب بنا ترانك وأنا ترانك اللينك كريم ترانك إذا مركا سمعنا لبضل لنا فيلان مدول بفيلان كيس جارة يوجاريا أو فيلان سويتشين بنقطة مركا وحنقطة مركا فيلان سويتشين تحصل ما أنت برانينا أوكي إنك شو وقت وبدنا هذا ترانك كان سديت الوصف إن سيد ترانك كان لازم هي imika waxaan soo baranay fiilaanada waxay yihiin waxaan soo baranay sida loo configure gareeyo waxaan soo baranay fiilaanada waxaan soo baranay in ay fiilaanadu makaraysa MAC addressyadu si fiilaanadu ka bartaa oo fiilaan kasta imika computerka la hadaan ku soo xidho MAC address kastayba fiilaankiisu waa u gaar imika fiilaan kastayba MAC addresskiga baraysan ka hadato laba computer oo kala haysto MAC addresskiisu wuxuu noqonayaa fiilaan 10 mid walba fiilaanka markuu ku dhaaf fiilaan 10 computer baa ayaa ku wada jirta MAC addressyaduna waa kala nooc tusaale ahaan
VLAN 20 boqol computer baa ku jirta VLAN ma garanaysaa magadarsiyadoodoo kala nooc laakiin halkaa VLAN marka VLAN waa segregation waa kala sooc haddaad fahantay waxaan u jeedo okay computerada ayay kala socdaa magadaryada ayay separate database u kala sameysaa waan garatay marka show MAC address markale a table dynamic waa inta dynamic lagu bartay waa kuwa aan garatay VLAN-kii gadan idhahdo static-na show MAC address static ninja marka dynamic waa sidaas okay static waa markuu switch-ku yaho marka switch-yada caadiga laga helay kan waa GNS3 laakiin image-kan isticmaalayna waa viral okay cool marka switch 2 yaa tagay waxaan galayaa interface-ka gig 0/0 oo labada switch u dhaxaysa waxaan leeyahay switch board mode trunk mana yeelayo hada waxa soo boodi doona moogtahay cannot trunk the encapsulation is auto and okay is auto cannot be configured as a trunk mode ayuu ku leeyahay moogta markaad inta afrido command the rejected interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured as a trunk as a trunk mode marka si loo xalin karaa waxaa loo xalin karaa command diga lagu horeysiinaya switchboard trunk encapsulation.1 key baan halka marka ka dhigaynaa kadibna waxaan ka dhigaynaa switchboard mode trunk marka interface-ka dhexgal do show interface gig 0/0 command okay do show interface do show run sabaa odhanaya marka interface-ka waa ka gig 0 intana copy odhanaya copy garaysana waxaan la tegayaa switch 1 waxaan odhanayaa interface gig 0/0 kuwana paste ku odhanaya labadeedii command marka imika haddaa dhahdo show interface trunk yani trunk ay ka dhigan tahay labadani inay datadan qaadi karaan VLAN-ada inay taagarayn karaan qaadi karaan marka waa arkayna waa kaas gig 0/0 waa on waana tracking native VLAN-kii aan sheegayna hadeertoole oo native ana waatan iyadoo native VLAN-ada markaa la ogol yahayna waxaa waaye VLAN 1 ilaa iyo 494 iyo magarasa iminka markaa waxaa spanning tree u ogolaaday waan dhiga doonaa oo statekiisa forwarding yihiin oo brunid auna ahayn ama la burun garayn waxaa waaye maaragtay waa VLAN 1 oo native ah oo weliga la burun garayn karin iyada ama laga reebi karin iyo 10 iyo 20 wanta ku configure karaysan okay marka hadda imika haddaan PC 3 tago oo switch 3 ku xidhan haddaan bingare ay sidhaado 10.1.1.2 oo saaxiibkiisa ahaa oo magaranaysaa PC 2 ahaa oo VLAN 10 ahaa oo switch 2 ku xidhnaa marka switch 2 ku xidhan marka hore waa diiday waa kan marka hore waa diiday big 10.1.10.2 waa diiday not reachable body laakiin imika waynu gaadhaa waa ka gaadhay sababtuna waa maxay linkigan baa tarankii ah marka halkan ay soo maraysaa datadii halkan ay soo maraysaa ma garatay kan ay u imanaysaa kan uu sii gudbinayaa kan markuu soo gudbiyana kan uu soo gudbinayaa saasay markaa datadii halkan maaragtay ay ku gaadhaysaa okay kan marka haddana iminka muxuu ahaa BC4 sidoo kale haddana kada BC4 oo BC2 BC1 bingare marka hore inoogama bingaran jirin waa kuwan markii hore waa ka BC1 oo 10.2.1 sorry 10.2.10.1 marka uu inaga dilo wuxuu host not reachable laakiin imika waa in uu inaga yeelo oo ka isna and the reason waa sida aan soo sheegnay marka intaasaan maanta kugu joojinayna aadna waa nii salaamay walaalahayga qaaliga way nagu daba dheeraaday videogu intaa baa gaba jeedin khayr maas wogna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu